mudane madaxweyne maantana waxaan kugu wareejiyey sidaasoo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xooga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkooda waxay dhammaysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu aad igu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii la soo dhaafay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne farmaajo kaga mahad